بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan waxaan weli ku guda jirnaa buugga barashada luqadda Carabiga buugga saddexaad ama tacliim luqada Carabiga kitaabkiisa saddexaad casharkan wuxuu noqonayaa casharka saddexaad darsu thalith waxa weeye casharka saddexaad waxaan horay u soo qaadanay casharo kala duwan casharka koowaad labaad kan wuxuu noqonayaa casharka saddexaad casharkan wuxuu ku saabsan yahay al-xiwaar wada sheekaysi الحوار وذا شيكيسي waxa sheekaysanay Xasan iyo Xuseen Xasan wuxuu yiri sabaax al khayr subax wanaagsan sabaax al khayr subax wanaagsan waxaan soo marnay qaabab kala duwan ee ay dadku u soo salaami karaan waxaanu sheegnay salaanta wanaagsan ama u sharaf badan ama ajarka laga helanay tahay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaba mararka qaar waxaa dhici karta in qofku uusan kugu salaamin salaantaas salaan kale uu kugu salaamo hadba marka waxaa la eegayaa salaanta uu kugu salaamay jawaab u qalanta inaad u celisid sida afka Soomaaligaba galab wanaagsan qofku ku dhihi karaa subax wanaagsan buu ku dhihi karaa habeen wanaagsan buu ku dhihi karaa maalin wacan buu ku dhihi karaa sidoo kale waxyaabo fara badan baa jira luqad kastan way leedahay marka wuxuu yiri Xasan sabaax al khayr subax wanaagsan Xuseen wuxuu yiri sabaax an-nuur subax lamid ah sabaax an-nuur subax lamid ah sabaax al khayr subax wanaagsan sabaax an-nuur subax lamid ah haddaba tani waxay ku tusaysaa xilliga salaanta ay dhacayso in ay tahay xilli subax ah maxaa yeelay haddii ay tahay maalin dhexdeed ama galin damba ama habeen subax lama oran karo sababtoo subax waa subax marka halkan waxaa galay haddii galab ay tahay masaa al khayr masaa an-nuur haddii galabta marka wuxuu yiri mata tastayqid halkan waxaad ka aragtaa ereygan inuu midab gaar ah leeyahay casharada hore ayaan ku soo sheegnay xarfaha ama erayada midabka gaarka ah in macna gaar ay sitaan qoraan baan u soo sharaxnaa haddana dib ugu laabto dooni maayo marka haddii aad u baahan tahay sharaxaadooda waxaad ku laaban kartaa casharada hore mata tastayqid goorma soo kacday mata goormee tastayqid soo kacda macnaha waxa weeye goormaad ka soo kacda hurdada goorma hurdada ka soo kacda Xuseen wuxuu yiri astayqid waxaan soo kacay inda al-fajr salaad subax agteeda astayqid waxaan soo baraarugaa inda al-fajr ereygan asalkiisu waa baraarug qofka si uu hurdo hal mar buu soo kacay sidoo kale tana kitaabka yar ee xisn muslimka ah ayaa waxa ku qoran adkaar la akhristo qofka markuu hurdada ka soo kaca adkaartaas waxaa loo magac daraa أذكار الاستيقاظ من النوم ساد أركتانبا أما أتكور هيسان بوغ أياو كبلاودبا أب كتاب كاسيرك أيا كبلاودا معايا قف كان نولشيسا حالي بو ساحدي ساكي بو سوكعي نولش بركو حي كبلاوميسا سوكعتانكاس بو سوكعايا ما أنتو حوقمان لها وحي كبلاوميسا سوكعتانكاس إلا لغي قارو هبين كدنبو ساحناي مركز سلسلة سيداس وحريرتو نولش بن آدم كأه waxay u wareegaysaa sida cajalka oo kaleeta marka maanta dhan buu shaqeynaa qofku rafaadaya wax buu ku jiraa haddana habeenkii buu saaxanayaa haddana dib bay u soo fafuraysaa cajaladii si fresh u noqdo maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri waja'alna al-layla libaasan maalintan maxaa laga yiri waja'alna an-nahara ma'asha marka waad dareemi kartaa libaas waa astur waa nasasho wixii maanta in qofku uu ku soo rafaaday oo macnaha daal iyo mashquul ayuu ka nasanayaa markii habeenkii la gaaro si refresh u qaata oo energy kale uu soo qaata si biri hawsha soo socota oo u sii dabaqa haddii ka waran habeen dhan laga saar lahaa oo la isku furo lahaa maalin kaliya ahaan leed Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka warramay aayad kaleeta oo uu leeyahay ka warrama qul ara'aytum
إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. marka taas waxay ku tusaysaa haddii maalin kale laga dhiga oo habeen dhan meesha uu ka baxa nolosha bani'aadamka wax badan ayaa ka qaldamaya. sidaa daraaddeed marka qofku markuu soo tooso hurdo uu kasoo baraarugo waxaa loo baahan yahay inuu akhrista ducadaasi inuu akhrista oo ay ka mid tahay kow ay ka tahay alxamdu lilah alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur. alla subxaana watacaala ayaad ugu mahadnaqaysaa maxaa yeele alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu alukhraa ilaa ajalin musamaa. dad badan baa jira siday habeenka u saaxideen nafta aanba loo soo celinba. qofku markuu hurdo nafta waa laga qaadaa. dad baa sidaasi ku tegay. marka adiga aad had mahadnaqaysid oo alxamdu lilah alladii axyaana bacda maa amaatana aad leedahay alla subxaana watacaala mar kale ayuu fursad kuu siiyey inuu ku soo nooleeyo si aad aga faa'iidaysid jaaniska uu ku siiyey ama waqtiga uu ku siiyey cibaadadiisa macnaha aadan naga mashquulin. mataa tastayqid goormaad soo kacdaa. mataa tastayqid goormaad soo toostaa. astayqidu waxaan soo toosaa cinda alfajri salaada subax agteeda. astayqidu waxaan soo toosaa cinda alfajri salaada subax agteeda. alfajr waa salaada subax. xasan wuxuu yidhi ayna tusallii salaata alfajri ayna xaggeebaa tusallii aad ku tukutaa salaata alfajr salaada subax. ayna tusallii salaata alfajr xaggee ku tukutaa salaada subax. usallii waxaan ku tukadaa salaata alfajr salaada subax fi lmasjid masaajidka. usallii waxaan ku tukadaa salaata alfajr salaada subax fi lmasjid masaajidka ayaan ku tukadaa. ragga masaajidka ayaa u fadli badan dumarkana guryahooda ayaa u fadli badan sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay. sidaa daraaddeed waxaa jirta riwaayo odhanaysa 25 darajo ama 27 darajo inay kala dheer yihiin salaada guriga iyo salaada masjidka lagu tukado. sidaa daraaddeed qofka hadduusan ahayn macduur ama qof xanuunsan waxaa waajiba inuu salaada geeyo masjidka. sidaa daraaddeed marka xuseen wuxuu yidhi usallii waxaan ku tukadaa salaata alfajri salaada subax fi lmasjid masaajidka ayaan ku tukadaa. masaajidka ayaan ku tukadaa. xasan wuxuu yidhi marka hal tanaam miyaad saaxataa bacda salaa salaada kadib. hal tanaam miyaad saaxataa bacda salaa salaada kadib. ereyga tanaam waad aragtaa inuu midab gaara leeyahay. wuxuu ka mid yahay ereyadii aan soo sheegnay midabaysnaa. wuxuu yidhi marka miyaad saaxataa salaada kadib salaada subax kadib miyaad saaxataa. xuseen wuxuu yidhi laa maya laa anaamu ma saaxada bacda salaa salaada kadib. laa waa jawaab fuula macnaha waa jawaab maya kaliya waa dhihi karaa qofka. haddii lagu yidhahdo salaada subax ma saaxataa kadib maya waad dhihi kartaa. waxaa kaloo dhihi kartaa maya ma saaxadi salaada subax kadib. marka tan waa jawaabta dhammaystiran. laa maya laa anaamu ma saaxadi bacda salaa salaada kadib ma saaxadi. haddaba hadduusan saaxan muxuu sameeyaa aan isla aragna. maadaa tafcal maxaad samaysaa bacda salaa salaada kadib. maadaa tafcal maxaad samaysaa bacda salaa salaada kadib. wuxuu yidhi anaa aqra'u lqur'aan waxaan akhristaa qur'aanka. anaa aqra'u lqur'aan waxaan akhristaa qur'aanka kariimka ah. qur'aanka kariimka ah. wamataa tadhab ila almadrasa goormeed aadaa madrasada. wamataa goormee tadhab aad aadaa ila almadrasa madrasada. adhab waxaan aadaa ila almadrasati madrasada asaacati asaabicati sabaaxan. waxaan aadaa madrasada saacadda marka ay 7 subaxnimo
todobada subaxnimo waa halka saac ee subaxnimo. adhab waxaan aadaa ila almadrasati madrasada الساعة السابعة صباحا todobada subaxnimo ayaan aadaa. hal tadhab ma waxaad ku aadaa bisayaara gaari hal tadhab ma waxaad ku aadaa madrasada bisayaarati gaari miyaad ku aadaa? laa maya. adhab waxaan ku aadaa bilxaafila bas ayaan ku aadaa. waa kan basaska iskuulaadka. ereygan midabaysan waa ereyada xarfaha anagu cusub. marka wuxuu yidhi adhabu bilxaafila waxaan ku aadaa baska ayaan ku aadaa bir iskuulka gaari kum aadi. dhowr nooc ayaa lagu aadi karaa iskuulaadka madrasooyinka, in lug lagu aada, in bas lagu aado sidaan oo kaleeta. waxaa jira iskuulaadka qaar bas labaa jira, in baabuur bariifad ku aadid, xitaa baskiilna ku aadid. marka hadba qaab iyo macnaha xeelad kala duwan baa lagu aadaa. waan ku celinaynaa mar kale casharka. الحوار wada sheekaysi casharka waxa weeye الدرس الثالث casharka saddexaad. الحوار wada sheekaysi. صباح الخير subax wanaagsan. صباح الخير subax wanaagsan. صباح النور subax lamid ah. صباح النور subax lamid ah. متى تستيقظ goorma soo toostaa? متى goormee تستيقظ aad soo baraarugtaa? hurdada goorma ka soo kacdaa wey. astayqidu waxaan soo kacaa cinda alfajri salaada subax agteeda. astayqidu waxaan soo kacaa cinda alfajri salaada subax agteeda. ayna tusallii salaata alfajri xaggee ku tukataa salaada subax? ayna tusallii salaata alfajri xaggee ku tukataa salaada subax? usallii salaata alfajri fi lmasjid salaada subax waxaan ku tukadaa masjidka. usallii waxaan ku tukadaa salaata alfajr salaada subax fi lmasjid masaajidka. hal tanaamu miyaad saaxataa bacda salaa salaada kadib? hal tanaamu miyaad saaxataa bacda salaa salaada kadib? laa maya. laa anaamu ma saaxdi bacda salaad salaada kadib. laa anaamu ma saaxdi bacda salaa salaada kadib. maadaa tafcal bacda salaad maxaad samaysaa salaada kadib? maadaa tafcal bacda salaad salaada kadib maxaad samaysaa? ana aqra'u lqur'aan waxaan akhristaa qur-aanka. wamataa tadhab ila almadrasa madrasada goormaad aadaa? adhabu ila almadrasati madrasada waxaan aadaa asaacati saabicati sabaaxan todobada subaxnimo ayaan aadaa. hal tadhab bisayaara gaari miyaad ku aadaa? laa maya. adhabu bilxaafila bas baan ku aadaa wuu yidhi. laa maya. adhab waxaan ku aadaa bilxaafilati bas. casharkeena saddexaad maanta intaa haynoo joogo. inta aynu ku kulmi doono casharka kan xiga waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.